hameenka koowaad inay qof kale qabrigiisa ku duugaan ayuu u dardaarmay ilmihiisa. Si aad qisadan cajiibka wax uga ogaato, soo raac muuqaalka. Ilaahay dartiisna channelka subscribe igu saar. Waxba ma kaa dhibayso. Waxaa la sheegay inuu jiray boqor weyn oo ilmihiisa u dardaarmay intuusan dhiman ka hor dardaaran la yaab leh. Dardaarankan ayaa ah inaysan ku duugin qabrigiisa hameenka koowaad markuu dhinto kadib, laakiin ay ku duugaan qof kale beddelkiisa hameenkaas, ayadoo qofkaas la siinayo maal aad u fara badan taas beddelkeeda, ayna ka fakaraan oo ilaaliyaan qofkaas noloshiisa. Boqorkan ayaa aaminsanaa taasu inay ka badbaadinaydo qabriga cadaabkiisa iyo fidnadiisa, iyo su'aasha labada malag oo Munkar iyo Nakiir ah ee hameenka koowaad. Muddo kadib waxaa dhintay boqorkii, awlaaddiisana waxay go'aansadeen inay fuliyaan dardaarankiisa. Waxay gudagaleen inay ciidanka iyo shacabka dhexdooda ka raadiyaan qof ku tabarucaya hameenkaas, beddelkeedana qaadanaya maal aad u fara badan. Mana aysan helin qof ka yeela oo ka aqbala arrintaas. Dhammaan dadkuna waxay dhahayeen nafaheena ku ridi mayno halaagyaal. Baaritaan iyo dhibtoosho badan kadib, waxay heleen nin maskiin oo baahan oo xaalku uu ku xun yahay, kuna shaqaysta qoryo uu duurka ka soo gurto 7 ilmoodna haysta. Adduunkana aan ku haysan maal aan ahayn dameer, xarig iyo faas uu qoryaha ku soo gurto. Ninkan ayay ka dalbadeen inuu hal hameen qabriga ku baryo asagoo boqorkii beddelka ah uuna qaato maal aad u fara badan. Laakiin wuu diiday markii hore, maalka ayay u siyaadiyeen waxayna ka dhaadhiciyeen oo ku qanciyeen inay tahay hameen keliya oo si degdeg ku dhammaanaysa. Kadibna uu ka mid noqon doono dadka taajiriinta, qoyskiisana uu faqriga ka bixi doono oo ay noqonayaan qoys taajira, asaguna uu madaxda ka mid noqon doono. Ninkii ayaa ku waafaqay asagoo naftiisa ku yiri, anigu weli ma dhiman, waa hal hameen oo keliya. Xataa hadday malaa'igtu ii yimaadaan ay weydiimayaan boqorka acmaashiisii, laakiin waxay i weydiinayaan waa camalyaalkayga. Anigana waxaan ahay nin faqiir oo aan waxba milkin. La soco qaybta labaad oo intaan ka xiiso badan. Walaal, Ilaah baan kugu dhaarshay adoon subscribe saarin ha dhaafin. Channelkan Allah ku barakeeyo.